muslimka dunida jooga maanta waa xilligu ugu tiro badnaa laakiin waa mid aad u tamar daran marka loo eego qarniyadii hore ee tegay rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo idin saadaalinaya arrinta iyada ah oo ka sheekeynaya saxaabada kala hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa iman doonta xilli ummaduhu ay isugu kiin wacdaan oo isugu kiin tagaan sida marka xeerada cunada la isugu yeeranayo kadibna saxaabadu waxay dhaheen maalinta miyaanu yarahay ma ibu yiri nabi calaysay salaam ma yaridin laakiin sida xumbada daadka la socoto oo kale baa tihiin waxay dhahan rasuulka ilaahay maxaa arrinta keenay waxa uu yiri cadowga quluubtiisa ayaa waxa laga siibayaa inay idinka haybaystaan quluubtiinana waxa la gelinayaa wahan rasuulka ilaahay waa maxay wahanku ayay dhaheen kadibna wuxuu yiri waa jacaylka adduunyada iyo nacaybka geerida ama geerida ayaad ka cabsanaysaa maanta waqtigan la joogo muslimka adduunka jooga waa mid dulbana ah gaaladiina waxaad aragtaa inay xoogaysatay oo iyadu wax dulminayso sababta ugu weyn waxay tahay in muslimiintii ay iskhilaafeen oo iyagii la kala qaybqaybiyey qaybiba ay gaar u fadhido rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa arrinta inooga digay oo waxa uu yidhi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha murmina oo ha isqabanina kadibna haddaad sidaas samaysaan waad fashilinaysaan awooddiina iyo haybadeennuna waa ay tegaysaa maanta walaalaheen reer falastiin dulmi baa ku socdaa laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala waa u hiilin doonaa oo suuratu ibraahim ayuu ilaahay wuxuu ku yidhi walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu addaalimuun inamaa nu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ha u malayn inaan moogannahay dulmiga ay falayaan kuwa daalimiinta ahi waxaan u dibdhigaynaa maalin indhuhu taagtaagmayaan adduunku macno ma laha meesha waxa weeyaan qiimaha leh waa aakhiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dibdhigayaa adduunkana muslimiintu mar hadday iyagu diintoodii ka tageen intaas ayaa lagu imtixaamaya laakiin si kastoo xaalku inoogu adeeg yahay ma niyad tabayno rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin waxa weeyaan ha tamar daraynina oo ha murugoonnina haddaad mu'miniin tihiin idinka uun ayaa guulaysan doona rabbi muslimiinta ha quweeyo cadowgana ha jabiyo ogeysiis waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska diiniga Liibaan online teaching uu diiwaan gelin doono arday cusub haddaba haddii aad rabtiin inaad baratid higaada quraanka iyo tajwiidkiisa tafsiirka axkaamta tani waa fursadaadii haddaba waxaa nagala soo xiriirtaa +252 9 eber 5 4 4 4 5 5 eber